Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Sabtidii ku eedeeyay dalka Giriigga inuu qabsaday jasiirado ku yaala badda Aegean kuwaasi oo ka caagan milatariga, waxaana uu sheegay inuu Turkigu diyaar u yahay inuu sameeyo waxa lagama maarmaanka ah marka uu waqtigiisu yimaado. Waa sida uu hadalka u dhigay. Turkiga iyo Giriigga oo aad u loolama isla markaasina ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa isku haya arrimo ka bilaabmay duulimaadyada aagga lagu muransan yahay ee meeqaamka jasiiradda Aegean ilaa xuduudaha badda iyo kheyraadka ee badda Mediterranean iyo sidoo kale qaybta qowmiyadda ku saleysan ee Qubrus. Ankara ayaa dhowaan ku eedeysay Afghanistan in ay hubinayso jasiiradaha Aegean ee milatariga ka caagan, iyadoo eedaantaasina iska fogeysay. Laakiin Erdogan ayaa kol hore Giriigga ku eedeeyay inay jasiiradahaasi qabsatay. Qabashada jasiiradahana nama celin doonto marka waqtiga iyo saacadu yimaadaan. Waxaanu samayn doonaa wax walba oo loo baahan yahay, ayaa Erdogan yidhi mar uu hadal ka jeedinayay gobolka koonfureed ee Samsun. Giriigga ayaa ka jawaab bixiyay eedeyntani kaga timid Turkiga, waxaana ay sheegeen inaysan raaci doonin hadallada iyo eedaha aadka looga xumaaday ee markasta ka soo yeedhaya dhinaca Turkiga.